lazinesska iyo waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay. sigaarka waxaa la wada yaqaanaa inuu sun yahay qoys iyo dadka laayo. cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen. qolana 6,800 meelahaasay noqoto, qolana 5,700. maanta waa kuwan yidhaahdaa xanuunada ugu tirada badan lee bini aadamka ku dhaca waxa keena bay yidhahdaan maxay? exercise la'aan. exercise-ka la sheegay inaad boodboodo quran maaha, waa inaad wax qabato uun. laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid, qof fadhiya habeen iyo maalinba, caafimaadkiisaaba khatar ku jira. ka kaalay nolosha inaad waxtar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato, ee waxa khatarta gelaya waxa weeyaan maxay? adiga caafimaadkaagii baa khatar gelaya. ولذلك بقى طبعا ما أنت واحد تلمامة يعني قفكوا إنه نشاط سكاليو ما معان بعد غبطة مسكر بعد غبطة ما كم بعد غبطة ما أنت صعو أنت قبو أنت يعني واحد قبو فردقوا مركا عقلي أنا وما في عنا إسك فردقا وحبل وقو قمانيني شركنا وما في عنا آخرنا وما في عنا أدونا وما في عنا ليزي نسو مركا نولشة ميل لبا وحكا قمالي وحا ماشا طالع قفك مؤمن كي إنه منتج نغضه qof wax soo saar leh inuu noqdo. weliga hamoodina waqtigu ku dhaafay dadka barbaa isle faataka alqataar ka sheegi jireen yani waqtigiiba tagay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta. xalaya dadka barbaa oo maanta konton jirbaad ee waxbaad baran karaysa. dad ba konton jirreynta ku bilaabeen culimadii waaweynay dunida noqday. ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono, ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay. adiga waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira. nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam isagoo taa inagu dhiirinaya wuxuu tilmaamaya in qaamat as-saa'a wa fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a an la taqum hatta yaghrisaha falyagrisha. nabigu wuxuu leeyahay hadduu qiyaamuhu xaggaa ka soo bilaabo soo kaco واد قعنتا كو هيسو فصيله ده waxa la yiraahdaa geetimireedka yar la abqaalayo. geetimireed yar aad gacanta ku hayso hadaad ka gaarsiin karto inaad abqaasho buu nabigu leeyahay abqaal beer hadaad ka gaarsiin karto beer waynaga yadan qiyaama ba inaan arkayno baynu fadhinaa oo leenahay waan gaboobay. Soomaalidu 40 jirkay ku gabowda Soomaa Soomaaligi markuu bini aadamku uu xoog badnaa markuu gaadho ayuu yiraahdaa waan gaboobo xolabo way ka dhamaadeen. bini aadamku aqligu ka gaboobaa. haddaad maanka ka gabowdo ayuu maad gabowdo. inta kale waxbaad qaban kartaa. inta kale waxbaad qaban kartaa. sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa qabla al-mawt in furas jiro inta geerida ka horeysa inaad fursad haysato. fursad wax lagu qabto inaad haysato. waxaad yaraysanaysaa wax weyn noqda. waxaad yaraysanaysaa maxaan uga jeedaa? sadar quraan inaad qaybtaa waa wax kula yar soo maaha. waxaad leedahay haddaan maalin kasta sadar qaybo goormaan quraanka dhammayn. haddaan sadar qaybo goormaan quraanka dhammayn. waxay dhahaan 12 sannadood ku dhammaynaysaa haddaad maalin kasta sadar qaybto. hadda waa sadar hal sadar waxay dhahdaan waxqabadku taraakumka beeritaanku qiimaha ku sameeya marka aad qabanayso wax yaraantiisa ayay ku muuqanay. haddaad maalintii hal safxa qorto hal page haddaad maalintii qorto sanadkii misaad soo saaraysa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta. waayo sanadku waa 365 maalmood. haddaad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa. laakiin haddaad tidhaahdo ma xaashi aan qoray baa buug noqon doontaa maxaan xaashi ka qori doona. aqoontu iyo waxqabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa. wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay? wax qiimo leh buu noqdaa. taasi waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin. wadaada wuxuu tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray una ajladii jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay
gaariga sii wado inta gaariga gurigaaga gacanta tagtay gurigaaga si socota inta aad degaysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa haday taraakumto de waa dad maalin walba sida tan u dhagaysanayso marka waxaan uga dan leenahay amalku iyo wax qabadku iyo wax barashadu iyo wardiga iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan amalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonayaa ilaahina wuxuu ina leeyahay walaa tahinu walaa taxzanu waantum laclawna in kuntum mu'miniin war dadka mu'miniinta wahniyo idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinkaa koreeyaba ilaahay tilmaamaya hadda kuwa mu'miniina hadda dariiqa iimaanka raacdaan waa koreynaysaa xataa markan awooddaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin intaa qabo سويت بإلهي القرآن كله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين بدنا أنت النبي قاتل معه ربيون معي سايلان قال قالين قوة ربي لو نسبية لأن إلهي سليم ومي ضعيف وحيد بسوق قاري مي إسليب مي إسلولدين يا واحد نغدين ضد ولو مركاها لقى بحرق بتي وضع عملك إلى ينتهي النتيجة ذاك قاريا أيها الأحبة مرك حديثك كم النبي كوكب جبيني عليه الصلاة والسلام ورت الماما يصح إريج اللوة وحكايتي تيران يدو دينار تسخ مشغولين هو النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام هاورني بل ما هدان سدايا سدايا لها وحاسا صبح الأساسا والله فإن لو تفتحه وحي فرطا لو وعمل الشيطان الباب الشيطان كيف فرطا ومحاجرة القضاء والقدر مرة تنكر دافه لما على عالو أربعة وحي هذين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذين اللي تشوقي لهاي وقوة منافقين وحي لين مسلمين تصور ما نسهدي إسكت شوقي لهايين ولا فردي لهايين ما ماتوا وما قتلوا ما نيدنتين لبندلين إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم حتى قريه نادا كجرتان انت وقتك وكرنا ما تجرد ويوم الله يبا إلهي سبحانه وتعالى ساوجد لو هاي العلماء قارين هذا موضوع التعليم كون بيكون في عنتي يلا استعمالي كره ومثلا جامعة بدكسو غالي جبسي وحيات برطان ماركت كان شغال كل هاي قف ديار باكويري لا تله مرة سبعة قلت لي ما أنت هذا جانس كا هيسان لها لو كان دان جانس كا هيسان لها كان ما قال لنا كهيسان قليلا وللتعليم قف كم بعد ربطينا ترى هذا والنتيجة ده أنا وضدنا صوب مرة يوم في عينيه واحد سكوت إذا ما حي كان كلينا أساس الدرادات بالنبي لها لو استقبلت من أمري ما استدبرت مركي أيوت المامي دتكي صاح الدي عمرضة ما حاجة صاح الدي حلالو بكروي هدي جودي دت هدي وضم حلالو بيسين هذا أنا ركيك هذا وحي صعدا في هذا يبلاب ملها بالنبي لي هدي جنا ما صاك حيين دت كنا ولا حلالو بالها بالنبي لي عليه الصلاة والسلام علماء واحد هذا المركه من باب التعليم يما لها هديت هاي وبنانت هاي لكن باب علاعلك هديت هاي بيلين ما بنانا وهو ما هي قل ما شاء الله كان وين رميستا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وحي تجي وحبك ما بدل كرتين ما دام أنا وحبك بدل كرينين إلهي وحقت الماما يا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلهي وحدون مو يعني وحكى الله يدك دوني كرتان مجرته إن الله كان عليما حكيما بل وحدك على عالي صحابة لغيا بي خير كساكو جري وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم معكو سوكو بي مركا حديثك لما أنتي با نبقى عليه الصلاة والسلام وحينو الشيء مؤمنك واحترك نفعك له حوكيسي عقلكيسا iyo wixiisu qabanayo nashiidka ku kufur fircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan
mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno cagsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno wain asaabaka shay-un falaa taqul haddii wax sidii aad rabtay natiija u dhici weydana ha odhanin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa laakiin waxaad tidhaahdaa qul qadara allahu wamaa shaaa facal faina low taftaxu camala shayطaan sala allahuma calaa muxamadi wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilah